calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Channelka daawaneysaan waa Baladi Official. Haddii ay tahay marka ugu horeysa fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyowyada aan soo gelinayno. Maanta waxaan ka hadlaynaa beerka xanuunada ku dhaca iyo waxyaabaha sababa iyo ciladaha uu beerka yeesho. Marka hore waxaa la leeyahay beerka waxaa fuusha fat ama dufan ama xayir si dadka u yaqaanaan. Beerka oo xayir fuusha waxaa loo yaqaanaa fat liver ama stresses, micnaheedu tahay in beerka ay ku dul abuuranto xayirtaas oo dabiici ah. Haddii xayirta beerka fuusho ay ka badan tahay 5 ilaa 10% culayska beerka, markaas ayaa la dhihi karayaa qofkan wuxuu qabaa beer xayroobis. Beer xayroobida waa xaalad sahlan, beerkana caadi ayuu ku laaban karaa iyada oo aanan daawo la qaadanin. Wax dhib ah joogto ah ma lahan beerka shaqadiisa. Beerka waa xubinta labaad ee jirka ugu weyn, shaqadiisuna waa midka aad ugu muhiim u ah wax kasta oo aan cunayno. Beerka ayay maraan markii la dheefshiidayo oo dhiigga lagu darayo si looga saaro wixii sun ah. Haddii xayir badani ay fuusho beerka, waxaa dhici karta in ay saameyso shaqadaasi oo cadaadis saarto qaar ka mid ah unugyada beerka. Taasina waxay keeni kartaa in unugyada dhintaan oo ay haraan yeesho beerka, kadibna qolfoof, taas oo loo yaqaano cirrhosis. Beer xayroobista waa xaalad aad u badanaana qofka wax calaamado ah ama xanuun ah ma dareemo. Markii la saaro ultrasound-ka ayaa lagu arkaa, halkaas oo ay su'aalo badan ka dhalataa maadaama dadka aysan aqoon u lahayn xaaladda. Badanaa beer xayroobista waxaa la arkaa da'da u dhaxaysa 50 ilaa 60 sano. Beer xayroobista ay keenaan cudurrada iyo cabidda khamriga way ka dhib badan tahay noocan sahlan oo aanan ka soo hadalnay. Waxaa la leeyahay waa maxay calaamadaha lagu garto fat liver-ka? Badanaa xayroobista ma lahan calaamado, si kama ayaa lagu ogaadaa. Dadka qaar waxay dareemaan daal iyo calool xanuun dhinaca beerka ah. Beerka wax yar ayuu barari karaa, taasi oo dhakhtarku marka uu wiisateynayo uu dareemi karo. Haddii beerka dhaawac gaaro, waxaa la dareemi karaa cunno xumo, miisaanka oo hoos u dhaco, caajis fara badan iyo daal. Xanuunka beerka xayroobista ugu caansan waxaa keeni karo khamri cabidda. Waxaa kaloo keeni karto daawooyin badan oo aad qaadato iyo xanuuno kaleba. Badanaa takhaatiirta ma sheegi karaan waxa beerka xayroobista u keena qofka haddii uusan khamri cabi lahayn, laakiin waxaa la arkayaa in ay ku badan yihiin dadka cayilan, dadka qaba dufanta dhiigga, cholesterol, iyo cudurrada sonkorowga nooca 2. Yaa halis ugu jira xanuunka fat liver-ka? Waxaa la leeyahay dadka khamriga cabida badan, daawooyinka la badsado sida paracetamol-ka oo kale, iyo sonkorowga nooca 2, uurka qofka leh, kolestaroolka, dufanta dhiigga, iyo nafaqo darrida. Iyo 7, xanuunada la xiriira farsameynta xayir jirka. Sidee lagu ogaan karaa xanuunka fat liver-ka? Waxaa lagu ogaan karaa badanaa ultrasound caloosha, kadibna waxaa la fiiriyaa dhiigga beerka si loo ogaado shaqadiisa. Kadibna haddii laga shakiyo beerka inuu dhaawac gaaray, cad yar ayaa laga qaadayaa si looga ogaado xanuunka hadduu keenay beerka xayroobista, khaasatan hadduu beerka si fiican u shaqayn waayo. Sidee loo daaweyn karaa xanuunka fat liver-ka? Hadduu qofka qabo xanuunka keenay beerka xayroobista, waxaa laga daweynayaa sida dufanta dhiigga oo kale. Waa in khamri cabista uu joojiyaa, waa in uu miisaanka
waa in uu miisaankiisa dhimo, waa in uu sokorta iska kontaroolo haddii macaan uu jiro. Haddii aysan xanuunka u keenin ama aadan cabin khamriga, welwelka iska yareey. Wax halis ah kuma jirtid. Cunto caafimaad leh cun, miisaankaagana ku dadaal. Waa talo iyo tusaalo. Ogow, cunidda dufanka oo laga fogaado ama qudaar la cuno kaliya beerka xeeroobistiisa caadiga ah kuma timaado xiriir lama lahan. Dadka badanaa ayaa laga yaabaa in ay aaminsan yihiin xeyr ama dufan badan uu qofka cunay darteed in uu beerka u xeeroobay ama uu dufan u fuushay. Taasi cilmi ma ahan, ayaa la leeyahay. Waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen kilibkan yar oo ku saabsanaa halista uu qofka bini'aadamka ugu leeyahay beerka haddii uu iska kontarooli waayo waxyaabaha aan soo sheegnay. Waa ku mahadsantihiin daawashada videogan. Haddii aad ka heshay, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagto asxaabtaada. Waa ku mahadsantihiin daawashada mar labaad. Thank you very much.